waa inaan soo eegaa waxa tuulada ka dhacaya. Isla markiiba wuxuu go'aansaday inuu soo baxo. Wuuna soo baxay, wuxuuna arkay dadkii tuulada oo iska hororsan. Wuxuu ku yidhi, maxaa idinku dhacay? Nin ka mid ah dadkaas wuxuu ku yidhi, waxaad timaaday khaakhdii dumarka timaha dhaadheera necbeed. Markaasuu xasuustay gabadhiisii oo kala fireeyay oo dib u jeestay, yacni gurigiisa ku laabtay. Wuxuuba arkayba naagtiisii amise gabadhiisii oo weliba waxaas ka bedelin. Wuxuu ku yidhi, naahedhe gabadhii amise naagtii waxba kaama jaran miyaa? Maxaa kugu dhacay? Sukuma irohan tinta wax ku qarso oo xijaab xiro amise iska jar intaysa kaa jarin naagtaas. Balse umaysan jawaabin, isagana wuu ka shakiyay timaheeda. Waxa uu ku yidhi gabadhiisii, dadka tuulada waa laga gooyay ee adiga maxaa lagaa goyn waayay? Balse way ka aamustay. Markii subaxdii waagu baryay, dadka tuulada ayaa yiraahday, anagu waxaan uga shakisanahay khaakda inay tahay gabadhan timuhu la baxday oo aysan timaha laga goonin. Balse waxaa maqlay ninkii dhalay gabadha. Arrinkaas ayuu odayaashuna hadalkaas ayay ku celcelinayeen. Balse ninkii dhalay gabadha ayaa ku laabtay gurigii saaxiibkiis. Markii uu soo gaaray guriga saaxiibkiis, wuxuu uga sheekeeyay waxay ka waramayeen odayaashii. Wuxuuna ku yidhi, adigu maad aaminsan tahay in gabadhaadu tahay khaakh? Wuxuu ku yidhi, waan u malaynayaa, sababtoo ah maalinba maalinta ka dambaysa way sii dheeraanayaan timaheeda. Wuxuu ku yidhi, saaxiib ila tali, taladaada ayaan rabaa maanta. Wuxuu ku yidhi, anigu haddaan kula taliyo waxaan aadaynaa caawa gurigaaga. Anigu waxaan isku qarinayaa kabarka. Adna waad seexanaysaa si aysan noo fahmin. Migula qabtaa fikirkaas? Wuxuu ku yidhi, haa, wax kasta oo keento waa kula qabaa. Markaas ayay gurigii imaadeen. Ninkiina wuxuu isku qariyay kabarkii. Markii ay habeenku noqotay caradii, ninkii wuu seexday, naagtiina way soo baxday. Ninkii kabar ku jiray ayaa yidhi, war saaxiibna kici, naagtaadii way baxday, na soo kici, aan dabagalne. Way dabagaleen oo raadkeeda ayay soo qaadeen ilaa markii dambe ay isku bedeshay khaakhdii tinta necbeed. Markii dambe yaab ayaa soo haray. Labadooduna saasay isku eegayeen. Waxay isku dhaheen, saaxiibna mari aan aadno meeshii aado bal. Haa, aan dabagalna ayay yiraahdeen. Waxay daba socdeen oo daba gurayeen raadkeedii. Naagtii khaakdaheed ayaa geesaha iska egtay oo qosashay oo tiri, maanta tima ayaa rabaa. Si u soo socotayba waxay aragtay gabar hurda barandada oo waxayna tiri, Allah, tan ayaa maanta igu jidhaa, waa inaan timaha ka goostaa si aan u yeesho quwad aad u badan. Ninkii gabadha dhalay iyo saaxiibkiis ayaa isu soo raacay. Markay mindida saa u qaaday, ninkii saaxiibkiis ahaa ayaa ku yidhi, mindida dhig. Ninkii ayaa ku yidhi, gabadheedii mindida dhig. Waxay ku tiri, anigu gabadhaadi miihi, waxaan rabaa inaan quwad u weyn yeesho. Waxaan rabaa inaan timaha aruursado. Ninkii ayaa ku yidhi, saaxiib ii sii jeedi, mindi ayaan soo qaadanayaa si aan timaheeda u gooyo. Sidii ayuu sameeyay oo uu sii jeedinayay gabadhiisii. Saaxiibkiisina gadaal ayuu ka yimaaday oo mindida ku jaray tinteedii. Waxayna ku tiri, waryahe maad waalan tahay, waa dhimanayaa haddii tinta laga jaro. Maxaa saas u samaysay? Xoolo ayaa tahay, doqon yahow. Markaas ayay ku soo noqotay jirkeedii caadiga ahaa.